هي هبين كستا ونية متكررة في كل ليلة من ليالي رمضان هبين كستا أو هبين نذر رمضان ككمدة وإن نيستو رمضان بالرئة سومي دونت هبين كي كلام مركز قارتي هذا هو إن نيستو هذا نيدي هالمانتو نيدي هذا هالمانتو تصالحان وآدم بالنيسان بالرئة سومتو نيدي قلبي كما آدم قبنن بالرئة سومي دونتو هذا مركز وحا واجب كقول نقولنا يا وح لو يقانو الإمساك إمساك محيطهاي sidii qof sooman oo kala dhaqankiisa inaad u dhaqanto waxna ma cuni kartid waxna ma cabi kartid xaaskaaga uma tagi kartid qof sooman oo kale ayaad xagga sharciga aad ka tahay mana soomanid oo soomkii niyadii ayaa ka maqan oo ahayd yaani rugni asaasi aha maalintaasna waxa waajib kugu noqonaya niyada aad halmaantay inaad dib ka soo qadayso taasna waxa tusinaya xadiiskii Abu Daawud iyo Tirmidhi labadooduba ay warinayeen oo rasuulku sallallahu alayhi wa sallam uu ku yiri man lam yujmi' qabla al-fajr fala siyama lah salaada fajrka ka hor salaada subax intaysan dhalanin ka hor qofkii aan niyeysan soomka inuu bari soomi doono aan niyeysan wax soomo ka ansaxaya ma lahan rasuulku sallallahu alayhi wa sallam xadiiska Abu Daawud iyo Tirmidhi labadooduba waxay ku wariyeen sunanka ayay ku wariyeen sidaas awgeed niyadu waa laga maarmaan haddii qofku uusan niyeysanin oo soomkii inuu bari soomi doono uusan niyeysanin dadka qaarkood waxaanu aragnay inay niyada ay iska fududaysanayaan oo waxa niyad la yiraahdo habeen walba in la niyeysto soomka aysan bal la socanba waxay la mid tahay xadiiskii Xudayfa bin al-Yaman ninkii agtiisa salaada ku tukanayay oo dhahay 40 sano salaada tukanayay saxaabiguna uu ku yiri saa hadad ku dhiman lahayd jid khaldan oo jidkii nabiga khilaafsan ayaad ku dhiman lahayd sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi marka niyada nafteeda waxa shardi ah an takuna jaazima niyadu waa inay tahay niyad labac iyo shaki waa inuusan kaaga jirin haddii niyadu shaki uu kaaga jiro dee go'aan ma qaadan kartid haddaadan go'aan qaadan niyadaadu ma ansaxayso niyadu haddaysan ansixinna soomkaaga ayaan ansixin tusaale ahaan qofku habeenkii Shacbaan uu 30 ahaa ayuu wuxuu ku shakiyay bari tolow Ramadaan bilowgiisii miya mise waa 30 buuxadii Shacbaan ayuu ku shakiyay bari markaasuu wuxuu qalbiga ka niyeystay كل واحد نيستبي ويرى هدي رمضان نقطنا إلى صومه هدي سن رمضان نقلنا أو شعبان لما يستركي ساي نقطنا هدي ما بسومه يمركا ساسو هبينكي وكجفت نيدا قوانك جازمة أنا هين أيو كجفت بقدرة الله بالردي رمضان يبقى نقطي وحبك مجرى عن قفك صوم كيس لكن وحكوا واجبية إمساك حرمة للشهر رمضان si bisha Ramadaan loo xushmeeyo waa inuu afaysto oo cunto iyo cabitaan iyo waxba ma sameyn karo maalintaana inuu dib ka soo qadeeyo ayaa waajiba limaada maxaa dhacay niyadii jaazima ma aha ma go'na niyad jaazima oo yaani go'aan qofkani uu ku gaaray ma aha sidaas awgeed waxaan mar walba laga maarmaan ah in aan niyada jazmino oo wax shakiya niyadu aysan nooga jirinin waxaa marka muhiim ah haddana nuqdada kale inaanu dul istaagno ama aanu ogaano